maadaama waxaynu iibinaynay ciddaynu ka iibinaynay ciddaynu ka soo iibsanaynay waa inoo samaysan tahay halkan waxaynu ku eegaynaa fiidiyowgan bal sida aad alaabtaad iibin lahayd aad u soo iibsan lahayd adigu ilaan intaanad waxba iibin waxaad iibin lahayd waa inay kuu diyaar ahaadaane waxaynu ku bilaabaynaa sida purchase orderka aad u diri karto markaa fiidiyowgan waxaynu ku eegaynaa sida aad purchase orderka u samayn karto markaad wax cusub samaynaysa maintain baad isticmaalaysa iminka waxaad isticmaalaysaa tasks marka aad tagto waxaad halkan ka raadinaysaa purchase order baad ku dhufanaysaa purchase orderku waxba ka bedeli maayo financial transaction maaha isagu oo financial positionkaada waxba ka bedeli maayo simply waxaad dalbatay alaab oo commitment baad gashay in lagu keeno iyo in la waayo labadaba waa la heli karaa periodkan wax dalbanaynaa waa important oo waa period 10 bishan weeyaan halkan waxaynu ka dalbanaynaa oomiinkaynu ka dalbanaynaa oomiinkan halkaa fenderkii baan doortay waxaan dalbanayaa itemskan dalbanaya waxaa ka mid ah waxaan ka dalbanayaa rice bagiska 25 kilogramka ah iyo rice bagiska iyo sugar bagiska 50 kilogramka baan ka dalbanayaa kan waxaan ka dalbanayaa 500 oo unit kana waxaan ka dalbanayaa 200 oo unit waa purchase order number 1 laakiin hadii jeer 1 lagama bilaabay aan ka bilaabo 1000 aan ka bilaabo orderka maantaan sameeyo bishii tamaad afarteedii baan sameeyey orderkan waan ka noqon karaa waan kansalayaa hadduu ii keeni waayo bisha tobnaad aan idhaahdo 15keeda ilaa intaasaan sugi karaa hadhow haddii waxa weeye orderkii aad kansasho close purchase order baad odhanaysaa haddaynu job ama customer bill garayn lahayn orderkan halkan aynu kaga dari lahayn laakiin iminka innaga dalbanaynaa sidaasaan u dalbaday markaa waxa way purchase order totalkaygu waa $10,000 waa $10,000 safe baan leeyahay order kalaan samaynayaa orderka kale waxaan ka samaynayaa Dero Group of Companies baan ka samaynayaa waxaan ka dalbanayaa rice bagiskii 50 kilogramka ah halkaasaan kala soo baxayaa okay waxaan ka dalbanayaa 1000 unit inuu ii keeno waa order 2 isagaa si automatic buu increment gareynayaa numberku marayka ku xigo ku daray ayuu geynayaa isna wuxuu ilaa 15 ayuu man sugi karaa 15 wixii ka dambeeya hadii keeni waayaan macnaheedu waxa weeye meel kale ayaan ka dalbanayaa kana waxa weeye waan save gareynayaa purchase order kaana sidaas ku sameeyay